بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. maalmaha waa ka raagay silsilad baa jirtay aanu wadnay oon dhamaynta lahayn taxanaha oo yani dadkii qaar lagu takfiirinaya israacidooda ama qoomamkii la israacinayey. hore waxaan usoo marnay suufiya iyo walaalahooda tabliiq iyo calmaniya. waxaan filaya intaa in laga soo qancay mushrikiin kufaar inay yihiin kuwaasi, wain zacamuu anahum muslimuun, haba sheegteen inay muslimiin yihiin waa ahlu shirki. ahlu shirkina islaam maaha. cilmaaniya oo dawaaqida adeecsan oo manhajka ilaahay inkirtay, iyo qubuuriyiin ilaahay keyrkii in loo yeerto ogol, iyo kuwo sidaa walaalo kula ah labadaba oo ah tabliiqa bal col u ah towxiidka col u ah. waxaan usoo gudbayaa marka qolada wahaabiya dadka qaar u yaqaanaan, yani maxaa cabdulwahaab loo tiiriyo manhajkooda haystaanoo dad towxiidka raaco weeye la yiraahdo, salafiyiin weeye la yiraahdo. waa laba qolo kuwa hadda soomaaliya ugu caansan. qolana waa alictisaam oo awalna soo ahaan jirtay alitixaad alislaami, qolana waa salafiya kuwa ayagu isu yaqaano ama salafiya jadiid soomaalida u taqaano. labada qoloba inay salafiyiin yihiin, muwaxidiin yihiin, shirkiga inkiraan, ay beri ka yihiin shirkiga ayay sheegtaan. labaduba ilaahay uma sharig yeela xagga qabuuraha way inkiraan, macruuf way taa ku yihiin, way inkiraan. bal culamo inkiray leeyihiin shirkiga qabuuraha, maalin walba way ka hadlaan. waxaana ku siiba weliba cadcad si fiican u hadla nimankan la yihaahdo ictisaamka oo culamadoodu aada usii faahfaahiso, maca kuwooda xataa dowladda gacan saarta lale ay qabuuriyiinta aada uga hadlaan, sida bashiir axmed salaad oo kale iyo wadaad kaleo nairobi jooga umal sheekh umal, aada bay uga hadlaan. way inkiraan shirkiga qabuuraha iyo awliyadan la baryayo iyo waxyaabahan khuraafaadka ah oo dad badan ay diin ka dhigteen suufiyada. kuwa kalena way inkiraan sidoo kale iyaguna. maxay markay ayagu kufaar ku noqdeen? waaba niman shirkiga inkiraye. sidee sheikho baabkaagu yahay? dad baa iisoo qoray, maxaad nimankaas ka rabtaa? waa niman salafiyiina, waa niman ducaada, dacwadan usoo qariibay 40-50 sano waqtiga wadankan rag baa odayaal kusoo maartay xabsiyada, qaar baa ku jira arrintaa darteed, qaar baa iyagoo dacwadan wada ku dhintay. sidee iyaga baadi ku yihiin, baadina ula dagaalamayaan baa laisoo weydiiyey. aada baad umahadsantihin. horta haddii ade aada la kala garbaxayo, marjicana sharcigaana loo laabanayo kitaabkii sunnada ah. ilaahay diintiisu ra'yi iyo hawo ma aha. magac lala baxana waxba ma bedelayo. hadduu magac wanaag noqonayo, xisbullah niman baa la baxay, waana shiico, waliba shiico nooca ugu qaabdarno atna cashariya wey, aada u xun. magacay la baxeenna waa xisbullah. kuwo kale waxay la baxeen ansaar allah, oo waxay joogaan suuriya, wadankan la yihahdo yemen. waa shiico jaarutiya xuutiyiin la yihahdo, firqada jaarutiya la yihahdo wey, kufaar wey, mushrikiina. marka magacu muhiim ma ahan. muhiimaddu waxaa weeye ictibaarku mabda'a la xambaarsan yahay iyo manhajka camaliga ah ee lagu dhaqmayo. kuwaan ka soo hadlayna kufrigooda iyo shirkigoodaba tabliiq bay la baxeen, oo waxay leeyihiin dacwadii nebi maxamed baaban xambaarsannahay, adduunyada gaarsiinayna caleyhi salaatu wasalaam. iyagaana lid ku ah dacwadii nebi maxamed, oo nin towxiidkii qariyo masalo khilaafiya u bixiyey, shareecadii ilaahayna u bixiyey siyaasad oo in la farageliya baatil tahay. dee kitaab iyo sunna intaba col buu leeyahay. haddana maxay isu yaqaanaan? niman mubaliqiin oo xagga yani dadka gaarsiinaya. marka magac muhiim maaha. muhiimaddu waxaa ictibaar kale waa maxay? waa caqiidada la xambaarsan yahay iyo manhajka camaliga ah. aan usoo gudbo qolada marka salafiyiinta la baxday ee labada qolo. labada qoloba shirkiga waa inkiraan qabuuraha. weliba mushrikiinta qabuuraha caabuda way inkiraan, mar qaarkood marmaray kasoo fakata inay mushrikiin yihiin. mabda-iyan uma ahan oo way diidaan inay gaalaysiiyaan. in la gaalaysiiyo ma banaana bay ku dhihi. haddana wuxuu leeyahy hadhow haddana waxaad maqlaysaa isagoo dhahaya masaajidka suufiyada ayaan la geynin jinaasada. maxaa nin ilaah u sharig yeelaya? jinaasadiisu ma anfacaysa
ha u geynina nin aad janaazada inuu ku tukado aada diiday maaratay qofkii dhintay oo ilaahay kheyrkii inuu caabudayo in aad ku eedeysade waad gaalaysiis markii la qabsadayna wuxuu yihi anigu ma gaalaysin meelaan mushrikiin weeye ku yidhi suufiya hala keeno kuwa kalena sidoo kale waaba caan wiilkan nairobi hargeysa jooga barbaraawi saaka wuxuu lahaa galabta ka hor imanaya wuxuu leeyahay mar qabuuriyiinta waa mushrikiin waa dad qubuuriyiina ilaahay bay u sharig yeeleen waa mushrikiin buu dhihi haddana wuxuu leeyahay mujtamac dhan in mushrikiin la yidhahda ma banaana xataa suufiyadii baa gartay oo suufiyadii way fahmeen dadkan la buujiileynaya waxay yidhaahdaan dee hal dhinac isu raaca inaad shirkina igu sheegto islaamna igu sheegto isma qaadanayso wadaad kale asna muqdisho jooga inta gobollo fara badan soo maray oo gobolkan mudug ka tirsan hobyo iyo baadiyaheeda ayuu yihi meeshan shirki mooye tawxiid kama jiro shirki unbaa meel walba fadhiya markay qayliyana yidhahdeen wuuna gaalaysi ad idima gaalaysiin buu yihi shirki baad ku jirtaan iyo gaalatiin labay kala tahay buu yihi shirki baad ku jirtaan soo micneheedu maaha sana baad caabudaysaan nin ilaahay ilaah kale la caabuday miyaa muslim ah fiir adiga marka ummadda si ay ugu cayaarayaan xaqiiqda way og yihiin marka ma gaalaysiiyaan sida anagu aan banaanka ula taaganahay dadkan waa mushrikiin waa kufaar banaankan la taaganahay ma qarsanayno waa noo diin ma guursanayo lama cibaadaysanayo gabdhihiisa ma guursa tayda siin maayo neefu gowracayo cuni maayo jinaaze uu leeyahay ku tukan maayo ilaah u naxariisto ma dhahayo mushrik baan u aqaan asna waa caaya wuxuu dhihi karu dhahaya laakiin tooda cay baan u arkaa ta anagana waa manhaj diin baan ku haystaa aniga qof ahaan uma caayayo marka mushrikiintiina waxay dhaheen shirki bay ku jiraan waana muslimiin waa khiyaano ninkii mushrik islaamiyana waa gaal waxay ku leeyihin waa ijmaac man lam yukafir mushrikiina aw shaka fii kufrihim aw saxaxa madhabahum kafar ijmaac weeye ku dhihi markay akrinayaan haddana waxay leeyihin mushrikiintii waa muslimiin idan adinka idin haysataa maadaama mushrikiintii aada gaalaysiin weydeen ijmaaca adinku idin qabta haddaad gaalaysiin weyd wanaa muslim ku sheegtay marka wanaa wala siis waxaa ka dhacday magaalada ceelasha biyaha nin suufiyada kuwa ugu caansana dhintay oo weliba wuxuu diidi jiray masaajidka dabaqeynka oo daris la ahaa inuu ku tukado kaniisad buu u yaqaana masaajidka anda ilaahay keliya hala tuuga laga yihahdo jadiidiye iyaa joogay iyo ixtisaam iyo waagi dambena anaga dacwo ka bilowna inkastoo markii dambe naloo diiday ninkii baa dhintay marka ninkii marka masaajidkii awal uusan soo aadi jirin waxay yidhahdeen dadkii qaraabadiisa ahaa asagoo noolba wuu diiday ma asagoo dhintaan geynayna kaas kale ee rufeeci masaajid rufeeci la yihahdo ku aaseen la yihahdo oo rufeeci ku ay caabudaan suufiyada ka mid ah kaasaan geenaynaa bale oo awalba uu ku tukan jiro oo aadi jiro oo dadkiisu joogaan nin jadiidiyada madaxdooda ka mid oo baabuur wataa yimid oo xer wata inuu ku tukaduu rabaa janaaze ahaan ugu tukado markaasaa la yidhi masaajidkiini in la soo geliyo waa la diido kii suufiyada loo qaado inuu suufiyada masaajidkooda soo gala ma rabo oo la yihahdo hadhow arday inta dadka bidcada ku sheegeysay masaajidkooda gasho in la yihahdo ma rabo kii ugu weynaana inuu ku tukado u socdaa bal adinku iswaafajiya kii ugu weynaa suufiyada inuu janaaze ku tukado idan ma masaajidku col la yahay mise dadka nimanku masaajidkay col la yihiin hadday dadka col la yihiin mushrikiinta ah kan janaaze kuma tukadeen waa uu sugay banaanku ku sugay markii qabriga loo qaaday oo dhinac inta u durkay asaga xertiisii qabriga agtiisa kula tukaday idan marka mushrikiinta iyo ayagu col ma ahana iyaga iyo gidaarkaa col ah waxa uu diiday waa beyt beyt ilaahay waa masaajidku qabri baa ku aasanoo laguma tukado kaasoo kale laakiinse haddaadba iyagii muslimiin u taqaan maxaa masaajidkoodiina u diidi su-aashaas waxaan u dirayaa gacmo dheere ninkii la yihahdo oo jadiidiyada culamadooda ka mid a maana waxay wada qabaan way kulligood in mushrigiina muslim la dhaho haddana janaaze lagu tukado ilaahay loo baryo taas waa waxaan ku haysta iyaga iyo kuwan kaleba ictisaamka ah suufiyada qudhooda ayaa markhaati iga ah waxaan sheegayo suufiyada waxba nooma dhexeeyaan jixin jaxa way og yihiin inaan u munaafiqeynana kufaar qurayshtii kuwooda lamida abujahal iyo abulahab inaan ka rumaysnaa way og yihiin run bayna iga tahay ee diin bay iga tahay aniga iyo wixii nala diina maadaama ilaah u sharig yeelayaan
iyagu way ogyihiin marka inaan kala qaybsannahay, qaarna iyaga walaalaystaan oo u laba wajiileeyaan, marna caayaan marna walaalaystaan, annaguna haba yaraatay waxba aanan ku darsanayn. taa waa xaggii suufiyada iyo maaragtay iyo wixii aan ka rumaysnay ayaguna walaalo u yaqaanaan muslimiina, waa ku gaalaysiinayna marka, ama tawxiid ha sheegta ama aysan sheegin. mushrikiintu soo may gaalaysiin weyn, ha dee ninkaan mushrik gaalaysiin muxuu noqonaya? waa midda koowaad. midda labaad, hogaankii dawaaqiidda cilmaaniyada. cilmaaniyada shareeca degsadeen, nidaam bay leeyihiin. labada qolaba hogaanka waxay u yaqaanaan in la ateeco inay waajib tahay. waxaana sii daran oo weliba arrintaas ku maman oo dadka kale iska xijiya cilmaaniyiinta, waa nimanka jadiidyada la yidhaahdo, oonan garanayn boqolo ka xun markay noqoto la dagaalanka yacni shariicada. maxaa yeelay cilmaani ma jiro adduunka la dagaalamaya diinta ilaahay ilaa saaxiib bay u yihiin. maxaa iyaga isku xiray? kuwan kale waxaa waxay yidhahdaan anagu ma jecelin cilmaaniyiinta, laakiin siyaasad baa noo geynaysa, oo waxaa weeye nimankan inaan ku hoos jirno. lajnat alculamaa bay samaystaan, meel walba shiikh waa u jooga, dhaqaalay sameeyaan, isku xir bay leeyihin. waa dowlad ka hoosle, waa ikhwaankii iyagu. ikhwaan qaybta saruuriyada qaabkooda leeyihin. amaa kuwani waxayba qabaanba, way ku hadlaan. wuxuu leeyahay berberaa maalin dhoolta hargeysu ka hadlayay, aniga waxaa ii amiira buu yihi ninka jubbaland meesha maamula, ii sheeg hargeysaland somaliland ninka maamula ayaa ii amiira buu yihi, isagoo la doodaya kuwan kale oo carcadaysto waxaad tiraahdaan buu yihi, inta banaanka soo istaagtaan si furcadiya waxaad tiraahdaan buu yihi hebel waa amiirkeyga. wuu kasii xigsanayaa cilmaaniinta kuwa kale. waana fikri ay qabaan nimankaasu. barnaamijkaas lagu aasaasay inay ka hoos shaqeeyaan cilmaaniyada, la dagaalamaan maxay cid kastoo shareecada u sacyinaysa. bal u fiirsada adduunka cid kastoo ay jooga, ninka maanta imaaraadka ku xiran, imaaraadka aragteena yuhuudda garab taagan, ama sisi ku xiran, maxaa la weydiinaya? nimankaas way aad bay arrintaas ugu fogaadeen. sharciga ilaahay in lagu dhaqmo iyo inaan lagu dhaqmin, kaan ku dhaqmin bay ka jecel yihin. adoo hadaa shareeco wado oo tira kitaabka ilah laisku maamulo taaquudba, waxaa tahay khawaarij. laakiin ninka sharciga ka taga oo kitaabka ka taga dadka ka jecel yihiin. bal aduu si dheh, dib u soo baara, meesha ka soo aasaasimayna soo baara. qolana waa qoladan kale, iyaguna ama siyaasad ka wataan ama wax kale ka wataan, taaquudka waa ayideen, waa garab taagan yihin. waa garab taagan yihiin. maanta dawaaqiidda culimadooday ku jiraan. iyagu dan islaam baan meesha u galnay dhahan, dan islaam waxay doonaan ba ku marmarsiyoodaane. maanta dawaaqiiddii bay ciidan u yihiin, nabad sugid u yihiin, madax u yihiin, dowladaha dad bay ku dhex yeeshaan, very active weeye. dhaqaalay ku bixiyaan. ninka is leeyihin waa idiin jilicsan yahay, dhaqaalay ku bixiyaan. kan kale waa ka horta, siyaasaday ku milan yihiin. in kitaab ilaahay lagu maamulo iyo in kalena dan kama leh, ayadoo qofkii iyo isleeyihin waa is soo xigtaan, kaasun bay taageeraan. oo waxay xikmad u arkeen ninba ninku ka sokeeyo in isaga lasoo dhaweysto, si aakhirka hadhow halkaas shareeco looga raadiyo, haddii halkaas shareeca ka soo baxayso. marka labadaa qoloba waxaanu leenahay baatil baa ku taagantihiin. xaggii dawaaqiiddana baatil baa uga taagan, hawaa ku kala darraahdaane. xaggii mushrikiinta in la gaalaysiiyo laga beri noqdona, waxaa weeye weliba waxaa u jilicsan markay qabuuriyiinta noqoto kuwan ictisaamka ah. lagama yaabo ninkan la yidhaahdo jadiidiga inay inta u yeeraan ictisaamku shir ku marti qaadaan, sida ay hadda u marti qaadeen ninka la yidhaahdo sheekh umal, jigjigo looga marti qaaday. ma u maleynaysaan berberaawi iyo abukar maalin ii sheeg wadaadkii magaciisa, kuwa xamar joogay xasan kaafi iyo uma yeeranayaan. imaya marka suufiya nimanka la yidhaahdo alictisaam iyo jadiidiyo, labadaba waxaan ku haysanaa mushrikiintii maydan gaalaysiin, dawaaqiiddiina kumaydan kufrin. labada arrimoodbana waa kufri. ninkii daliil haya ha ii keeno. daaquud ninkii ku kufri waaya muxuu yahay? mushrik ninkii islaamiyana muxuu yahay? wajazaakum allahu khayra, wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.